شيخ سائلك مقولي هي عانا نسكلسي marka caanihi baan fridge-ka geliyay ninkayga bariisku cunay xaaskayga oo iga maqan ayaan video call kula sheekaystaa kula raaxaystaa marka qaar anoo xaaskayga macaansanaya iyo shahwadiga imaataa gacan ma isticmaalo bada iga imaadaan ma bannaan tahay tabcan saas weeye arrintaa may bannaan tahay hawshaan iska wataa بسم الله الحمد لله مسألة طبعا نحر كذا وأنكو الدوحاس كيسة عانه هذا أي علوشي سقراموي أما تصبح بأنه أما استغبها الله لسو أما سيدنا وكالي يقول إلما الله لغي أكو خلدمه waxaan filayaa kan oo kale waxa meesha loo geliyay maanta ilmaha tiisada maadoo maqan hal la siiyay inay lahayd baa laga yaabaa isagana isagoo suxuur ordaya eroo ka dul dhacay markaad degdegsan tahayna siyaabahaasoo kale way dhacdaa inaad wax ku khaldanto mara khalada qaadato haddaad masaajidka salaad subax ka gaadhis leedahay ood cimaamad meel ku tiilay soo qaadato islaanta garbasaarteedii soo qaadatana way dhici kartaa gaar ahaan hadduu habeenkaa nalku maqan yahay haddaan nal joogin habeenkaas inaad go-aagii soo qaada tiraadoo kii xaaska soo qaadatana masaajka dhexdiisa oo lagu arkana waa dhici kartaa wayna dhici ka jirtay waagi hore islaanta garbasaarteeda intuu duubto subaxii markii qur-aanka cabaar la akhristo la yidhi warrebe waxaad duubantahay maxaa waay la yidhaahdana wuu khaldami karaa qofku degdegaa iyo xilligaa duruufta wax dhici kara muhiimaddu maxay isugu tegaysaa caanihii baa calooshiisa galay hooyo muu noqonaysaa dhowr mas'ala saamaynaysa masalada koowaad ee saamaynaysaa masalatu ridaaci alkabiir la yidhaahda way qof weyn 2 sano qof ka weyn haddii la nuujiyo sidii ilmihii ka yaraa ee la nuujiyey ma noqonayaa ظاهرك أكثر كالنصوص وعمايا القرآن هو حويل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة نوقف كنا لما يستر وقت هذا الرضا أنا وقت هذا دول لما هذا معك هذا مبين كدي وقت هذا معه وحاكم إذا النبي يقول إنما الرضاعة ما كان في الحولين ما فتق الأمعاء وكان في الحولين وحي الماء حديدي سي حدمه سي كبعية لبصنا قدرودنا بنوجي ليلة هذا كذب مولى سالم مولى حذيفة ما قصة خاصة وظروف قارة هي مسويحي الله ماذا وضرورة اعتمادا لغا قياسا كي ليلة هذا بقى نكروا كان ضرورة ما هين سالم مولى حذيفة ما هين خاص بعد دير لي هذا لبدا قول أهل العلم كان من كنت بقمي ميسو بس ترى لبدا وجد بروحاوي هي تبدو هالمر بيشيكتي نوجمدنا الشنشر باوير 5 رضعات معلومات يحرمنا شنشر وكل الدول وين يدعى هذا أنا هالمر بيشيكتي نين بريس كدر صداي هالمر وحما حارانتين ميسو هذه الشنطي بعد النقطة ورضاع الكبير نوال يقول هي عن دهنا وحا إيمان يسننكو الله بر لبنه عنه عانه سيوي المهم مركو هو ييش أبيه عانه إرمانيين أبو نقرأ إنسان ما أبيس نقرأ يوي مركا كنت أصلا مركا لا يجاي سيدا صحده هو يقول نقرأ ميسا لكن الماء كذا ميسا ما دهلا horta baabka rag iyo dumarka ku saabsan bini aadamka meel weyn buu kaga yaalaa saas darteed marka la sheego attentionka oo dhan buu soo jeedsadaa kii meel ka fikirayay kii wax akrinayay kii hurdaysnaa kii daalana xataa kii sii baxay uu istaagayaa baashan shahwada bini aadamka
xooggay ku haysatiyo suu u afduuban yahay baad garan. waxa keliya ee marka la sheego yar iyo weyn, rag iyo dumar, la wada qoslana waa iyada. marka wax rag iyo dumar ku saabsan markay dadku xajisaanba waxaa la dhahaa war su-aal dhanaga halkaasa ku dara, dadka oo dhan baa cajiskaa ka kacay. halkaa waxaad ka garanaysaa nabigu markuu leeyahay dadka laba qofkii ii ballanqaada jannaan u ballanqaadi, afkiisaas iyo farjigiisa inuu dembi ka ilaaliya qofkii ii ballanqaada jannaan u ballanqaadi. dadkana naarta wax u badan ee geliya waa afka iyo farjiga. baad garanaysaa farjiga shahwada bini aadamka saamaynta ay ku leedahay inta uu dhan yahay iyo maskaxdiisa say uga adag tahay ee ugu afduuban iyo uga xoog badan tahay. halkaasaad ka garan. saas darteed hadda cajiskiina waa baxay, dadkii oo dhanna waa soo wada jeedsadeen. su-aashan jawaabteedii sida loogu soo jeedana kuwa badan oo kale looguma soo jeedin. marka meel baa la iska taabtayoo dadka fiila ku wada dhegtay. marka koronta meel ka wada haysato ku wada dhegtay. ninka waxaan dhihi lahaa laba arrimoodba. waa marka koowaade keligiin ma tihiina horta ogow. markaad video call galaysaan waxaad maraysaan ab ay dad samaysteen oy maamulaan. telegram dhe, whatsapp dhe, facebook dhe. programkan dad baa leh oo maamusha, waxaana mamnuuca waxaana sii daaya. ama markaasba ha noqoto kormeer iyo inaad qolyo fiirinaya la kulanto, ama ha dhowba dib dulmarka inaad kala kulantee. dad badan oo faylashooda waa la soo qarxiye luqa la yidhahdo loo isticmaalo soomaydaan arag. horta ogaada adiga xaaskaaga keliya ma tihiine cidda aad abkooda isticmaalaysaan iyo shaqaalahooda way idinla joogaan. keligiin iskuma tihiin. adugu sax qof maadan ku soo darin, iyaduna qof maydan ku soo darin meesha, laakiin meel dhaxaad isu sii maraysaan oo la joogo. codka iyo hadda codadka waa la isdhegaystaa sooma, fidyooyadana waa la isdaawadaa. horta taa waa inaad fahanto markaad wax samaynayso iyo sawiradan iyo fidyooyadan aad duubayso keligiin ma tihiin. waa dhici kartaa berri iyagoo baraha bulshada ordaya inaad aragto, waa dhici kartaa. ninka xaaskiisu waxaa muhiimka yihi ninka xaaskiisa haddii istimnihii iyo siigaysigii la yidhi lama ogolo ha la iska daayo, ma ku jiraa midka xaaskiisa uu la sameeyo ma ku jiraa? maya. ninka iyo xaaskiisa xiriirka dhex maraaya ee shahwada biyuhu ku yimaadaan galmo keliya ma aha. marar bayba gabadhu macduurta. saa darteed erayo badan bay isticmaalaan, mufaakhaday isticmaalaan, siyaabo badan ba ama gacantayda ha noqoto ama jirkeeda meel kaleoo kamida ha noqoto. ninku intay xiriir sameeyaan oo jirkooda isgaaro oo istaataabtaan bay biyuhu iman karaan, dhib ma laha. haddii waxan uu dhex marayo dhib uma laha inay isagii xaaskiisii yihiin. inuu jirkeeda taabto ama uu arkana dhib ma laha. in iyada jirkeedii uu arkay ama uu taabtay biyo shahwo kaga yimaadeenna dhib ma laha. laakiin qolyahan dhexda fadhiya uun iska ilaali. bilahi towfiiq.